Haweeneydani waxa ay ku noolayd nolol raaxo leh, waxayna la noolayd ninkeeda iyo carruurteeda. Mar walbana haweeneydani waxa ay kaashan jirtay gabdho u barbaariya carruurta, si ay nolosheeda ugu kaashato. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa u yimi nin ka mid ah dadka beeraha ka shaqeeya oo wata gabadh yar oo uu dhalay. Ninkaasi oo ahaa haweeneydan ninkeeda saaxiibkiis, dadkii la macaarifta ahaana ka mid ahaa. Ninkan ayaa waxa uu keenay gabadh yar oo uu dhalay oo 7 jir ah. Gabadhaasi oo ujeeddada uu u keenaya ay ahayd inay ka shaqayso guriga haweeneydan, bishiina ay ku shaqayso 20 gini oo keliyeeta. Markii uu keenayba, ninkani waa uu iska laabtay, waxaana uu ka tegey gabadhii yarayd oo ku dheggan khamiiskiisa, isaga oo indhihiisu ay ka qoyan tahay ilmo. Gabadhan yarina waxay ka caado yeelatay inay alaaseeda hore kacdo, iyada oo ku caawinaysa haweeneydan inay diyaariso cuntada labadeeda carruur ay u diyaarinayso. Mar walbana waxay soo qaadi jirtay shandadaha ay carruurtu ku aadaan dugsiga, iyadoo ula soo degaysa xagga laamiga. Markay intaasi gudato ayay soo laaban jirtay, iyadoo guriga ugu soo noqonaysa masaxaad, soo iibinta waxyaabaha daruuriga u ah qadada iyo wixii la mid ah, iyo weliba iyadoo intaas ku daraysa isku aadinta alaabta, ilaa ay ka gaadho habeenka kala barhkiisa. Mar kasta oo gabadha yari ay hawsha guriga wax ay looga rabay ka ilowdana, ninka guriga iska leh ayaa garaaci jiray. Gabadhan yari waxa ay mar walba u dulqaadan jirtay garaacan joogtada ah, iyada oo indhaheeda ilmo ay ku soo taagan tahay. Bay mar walba waxa ay ku samri jirtay xaaladda adag ee ay kala kulmayso ninka guriga leh. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. Xilli dambe ayay waxay ogaatay haweeneydii in alaabtu ay gabadha ka daadanayso gacmaheeda, taasi oo ah kana dhalanaysa dilmada faraha badan. Mar walbana waxay arkaysay gabadha oo kufaysa markay soconayso. Gabadhii waxay go'aan ku gaadhay inay ilmaha yar dhakhtar u geyso. Digtoorkii waxa uu u sheegay in gabadha araggeedii daciifay, oo aysan si fiican u arkaynin waxa labadeeda lugood ku hoos yaalla, sidaa daraaddeeda ay la dhacayso. Iyadoo arrintaa lala qabo, uma uusan turin ninkii guriga lahaa, waayo waxa uu ahaa nin xun. Gabadhii iyadoo xaaladda ku jirta adag ayay maalin maalmaha ka mid ah ka baxday guriga. Gabadhaasi oo noqotay markaa sidii qof indhala ku dhowaatay, ma aysan soo laaban, mar dambana lama arag. Haweeneydii wax ihtimaama ma aanay siinin inay raadiso gabadhii, ninkeeduna waaba uu ka darayba. Ninkii ayaa shaqadii ka fadhiistay, sidaasi daraaddeeda wiilkiisii baa jaamacad ka soo baxay. Wiilkiisiina waa uu guursaday. Labadii waalid waxa ay ku farxeen oo ay aad u soo dhoweeyeen guurka wiilkooda, weliba markii ay ogaadeen in gabadha uu wiilkoodu guursaday ay xaamil tahay. Muddo kadib ayaa waxa u dhashay ilmo yar oo aan waxba arkaynin. Arrintaasi oo ku noqotay naxdin weyn, iyagiina dhammaantood dhakhaatiirtay arrintii u bandhigeen. Waa ay dejiyeen dhakhaatiirtu, waxaana ay mar dambe uur qaaday gabadhii, waxaana dhashay gabadh wax arkaysa sida carruurtoo kale ah. Dhowr bilood kadib, ilmihii yaraa ee u dhashay dambe ayaa waxa uu noqday mid aragtidiisu toosan tahay, hal dhinac oo keliyana eegaysa, oo aan ashiisu soo noqonaynin. Ninkii odayga ka ahaa guriga ayaa waxaa ku dhacday xaalad histeeri ah oo waali ah, taasi oo ka dhabqisay noloshii wanaagsanayd. Waxaa la geeyey xarun kaalin ah oo maandhaya ah. Haweeneydii ayaa qalbigii qalala,
xilli iyadoo fakaraysa ayay waxay xasuusatay gabadhii cadaabtooda ka carartay, iyadoo isweydiinaysa ilaahay ma sidaasuu dadka u ciqaabaa. Muddo yar kadib ayaa waxaa la ogaaday in gabadhii indhabeeli gaadha ee reerka ka carartay ay tahay mid ka mid ah gabdhaha ka shaqeeya masaajidada. Haweeneydii ayaa aaday gabadha si ay u soo celiso oo ay ula noolaato inta ka hadhay nolosheeda. Way soo waday gabadhiioo dareemaysa jidka, islaantuna ay dareemayso xaaladda. Labadeedii carruur ee indhaha la'aa iyo gabadhiioo iyaduna wax bidhiiqsanaysa ayaa guriga ku wada noolaa. Danta ugu weyn ee haweeneydu lahayd waxay ahayd in Ilaahay u dhaafo. Mar walbana dadka qallafsan waxay u sheegi jirtay Ilaahay ka yaaba, waxaa laga yaabaa in Ilaahay idin dhibo sida aad dadka xooggiina ugu dhibaysaan oo kale. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون. haddaba daawade haddii aad ka heshay muuqaalkan fadlan sabskaraib saar si aan u soo badino muuqaalada noocan oo kale ah. Mahadsanid.